aniga ahaa baarey beer ku taalo oo ciise miinsaad nin la yiraahdo beertiisaan ku bilaaway abuur shiinaha aan ka haday yaa meesha aan ku abuuray lama ogoleen in shicibka loo gacan geliyo bariidka lama ogoleen shiinaha waxayna tusaayeen farsamo oo la sameyn karin oo bariid lagu abuuri karin ayuuna tusaay farsamadaas waxay ahayd makiino oo lagu heedaba cijo oo wax dheer leh dhulka lagu qasaay meeshaas carrada waxa laga dhigay mishaari oo kala laga dhigay mishaaridaas aan ku talaalayni lagu talaalay waa qaab oo muxuu ahaa oo aad u adag ah hadda anigoo amrigayga ilaahay inta soo gaarsiiyay dadkii waagaas jireen hadda wax ka yara waa wax nool ma jiraan u maleynaya waxay ka nool waa wax yar dhalinyaradiinaan waa mahadsantihiin waaba ma aragtay wax u sheega waagan hadda joogna haddaan ka hadalno oo bariidka taariikhdiisa waa idin sheegay 50 sano laga joogaa 50 sano oo baarey beer u dhow yaan ku abuuray bariiski asaga ahaa waa shiitay markaan arkay kadibna dadkii oo dhan ku kacay oda maxamed nuuxu oday ay dhahaan reer baarey ah ayaa igu xigay waxa igu xigay cali ismaaciil oday dhahay oonadkan agtiis deganaay adu rag badan oo markii dambe bariisku waa lagu yaacay waa la bartay bariiskii oo talaala lagu bilaaway waxa loo bedelay dambiishada ku shibay sidii sisan ahaan u fardhi tacabkii waa fududaaday marka jiilba jiil waa adduunyada ma rabi inaan warku ku dheeraado horta halahaas waa idin ka horeeyeen midda hadda la joogo bariidka awal hore wuxuu ahaa wadamada Asiyaatiga yaa laga cuni jiray hadda adduunka oo dhan meel laga cunin ma laha barka bariidku waxa waaye waa geed ma aragtay oo muxuu ahaa autogame autofecundazione macnaha autogame waa game waxa waaye raganimadu waa marka bariidku horta waa autogame bariidkan aad arkaysid wadamada qaboobaha ha ahaato dhulka wadamada buuraley ha ahaato wadamada ma aragtay oo kuleelaha ha ahaato wadamada saaxil ha ahaado meel walba waa ka baxoaya maqaayad walba hadaad aragto asaga laga cunaaya waa ilaahay mahadiisa anaga ilaahay webigan oo shabeellaha dhexe bartamihiisa maraayo yaa ilaahayna siiyay marka waxa loo baahan yahay in ma aragtay dadkan deegaanada kale Soomaaliya oo abaaraha sheeganayaan inta abaar ma ka dhacayso abaar wax la yiraahdo ma naqaan anaga hadii webigaas aan haysano dhalinyartiin aniga waxaan idin kula dardaarmaa bariiski asaga ahaayo oo ilaa 50 sano la soo waday khayr Allah siiyay waaba ilooy anoo magac beeraleyda ku hadlaayo oo joohar beeraleyda bariiska gaar ahaan ku hadlaayo khayr Allah siiyay bariiski hadda wuxuu gaaray 26 tuulo meel kala dhiga leeyahay bariiski soo go'ay meel kala dhigo ala leeyahay cid hadda ma arti bariiski qaadan oo haysana malaha shafaalkiis markii la bilaaway oo bislaaday 620 loorka 50 kiilo aha haddana shay suuq waxa laga sheegay 450 ee ablugu leeyahay marka horta walaalayaalow adduunyadan adinka u dhalin yar waad arki doontaan heerar badan aad arki doontaan marka waxaan aad ugu faraxsanahay ee adduunyada aad arkaysaan meel ma aragtay galey ha ahaato bariid ha ahaado wax kasto oo baxo dhulka ka baxo ama wax kasto xoolaha ha ahaadaane oo tijaabo lagu sameeyay ma jirto oo tijaabo jirin ma jirto meel walba wuxuu wali tijaabiya professor dad aqoon-yahana tijaabi markaas kadib beeraleyda loo gudbiya ama xoolo dhaqatada loo gudbiya ma qabna anaga laakiin hadda waxaan aad ugu faraxsanahay hay'adan oo dan wadaag oo bariiskan joohar ku tijaabisay aad ban maartay ugu hambalyeynaa sababtoo ah bariid naguma cusba laakiin waxaan ugu cusub bariid meel lagu tijaabiyay oo la leeyahay saasoo baxaa biyaha la soo qaadana fertilizer ka soo qaadana kan ka soo qaadana la leeyahay maartay waa nagu cusub yahay ha laga faa'iideysto gobolkan aakhirkiisi hadii kaliidaan la dheereeyo maxaa la yiraahdaa oo meelaha biyaha gaari karaan la gaarsiiyo wadanka Soomaaliya iska dhaafay Afrika oo dhan wadan halahan anfacay sababtoo wax dhalkiisi halkii jibaal
4 loor oo cad ilaa 5 loor ayaa laga soo saaraa halkii jibaal eetarkii 64 loor ilaa 80 loor ayaa ka soo baxda hadduu si fiican u baxo marka bariiskii haddii meeshii maaragtay oo 80 loor ka soo go'day inta la geynaa waxa ka qaadanaya magaciisi ama dibadda loo dhoofinaya ama waxa waay wadamada jaarka qaadanaya maan waaba naga badanaya kaliyaalkan hadii la dheereeyo sidad ka warqabtaan webigan buurkiis hadaad adfuusho meel geedkii ku yaal la arkay yaa leeyahay biima gaarayaan abaara ka jirto been hadaan sheegin geedkii ku yaal waa la arkayaa webiga kaliya daantiisa adfuusha marka hadaan adinyadan adinka u dhalinyar taas waa in laga baxaa adduunkana qolo walbaba wadan walbaba dadkiisa horumariya maana waxaan ajnabiga imaanayaan lugooy maana waxay ku tarayaan ma jirto hore aan soo arkay aniga lugooy maana waxay ku tarayaan malaha wadankan aadinko idin sugaya dhalinyaro horumarintiisa siyaasad ma aha waxaan dawlad ma aha waxaan waa dadka shacabka ah oo aqoonta leh oo wax bartay oo deegaanka u dhashay ayaa sugaya horumarinta wadanka